kulankan ay isugu yimaadeen qaar kamid ah odayaasha iyo waxgaradka degmada dhacdeeye ayaa maanta mar ay qayb kamid ah warbaahinta la hadlayay waxay sheegeen dhul beereed Allah u naxariistay marxuum Maxamed Cabdi Geelle oo ku yaala deegaanka Geedeeblo ka tirsan gobolka Maroodijeex oo la isku dayay in la iibiyo waxaana sheegeen dadka doonaya inay iibiyaan dhulkaasi ay mid dhaxal ah odayaashan iyo waxgaradkan ayaa ugu baaqay cid kastoo isku dayaysay inay iibiyaan dhulkaasi iyo garsoorayaasha maxkamadda dhulkaasi uu leeyahay marxuumka aan haba yaraateen la iibin karin odayaashan oo hadalkiisa ka dambeeyay hadaladoodii waxa kamid ahaa beeraha waxa la yiri waa la iibinayaa dad baa qabsaday oo yiri annaga leh malaha dadkii lahaa waa u maqan yahay lama iibin karo lama hadli karo lama dhawaan karo waxaan u sheegaynaa gaar ahaan maxkamadda sare u sheegaynaa inaan guriyahaas dhaxal weeye aan la iibin karin islaam baa qabsatay waxay tiri waa iibinayaa lama iibin karo gaar ahaan beesha Sacad Muuse ee Cabdalla Sacad waxaanu leenahay beeraha waa ogtihiin dadkii lahaa cibaado culhaya ma laha mana dhici karto mana qaadan karto mana iibsan karto agoontaas aale dhaxalka ilaa la dhaxlo lama iibin karo ifoojarina laga samaysto ma ogolin dooni mayno waana imanaya Hargeysa imanayna wixii foojariya wixii sameeyay baa xidhmaya waynu ognahay shariicada islaamka waxa weeye dumarka mas'uul baa laga yahay xitaa hooyada waxaana mas'uul ka ah wixii nin ah ee ay dhashay ama marxuumkii qabay uu dhalay oo caruurteeda ay ka wada mid yihiin mas'uuliyadda reer Maxamed Cabdi Geelle waxaanu maanta aanu garanaynaa inay mas'uul ka yahay Mahdi Maxamed Cabdi Geelle waxaan u sheegaynaa Maxamed Cabdi Geelle wixii uu lahaa oo 29kii ka dambeeyay laascaanoodna qaar baa ah Hargeysana qaar baa ah geedka deebta lagu badan yahay waxaanu ku hadlayno waxaan u sheegaynaa ma nooc kastuu yahayba xoolaha shariicana waanu ku hadlaynaa shariicana ku hadlayno waxaan u sheegaynaa caalamka dhageystayaasha iyo daawadayaasha iyo dawladda iyo golayaasha waxaan u sheegaynaa xoolahaas inay yihiin xoolo dhaxal ah qofka doonana wuxuu salahay inuu qaato dooni mayno halkan waxaanu ku sugannahay odayaasha beesha reer cilmi codkar iyo caaqil iyo buddigaba gabadha ceebayn mayno naanaysi mayno laakiinse waxa weeye wixii xadguduba oo ama dumarnimo seejiso ama dadku masaa'ildoon iyo wayska noqdaaye ay tusaalayso oo ay ugu muuqato in si qabiilnimo ah marka hore wax looga qabto haddaan nahay beesha waxaanu qabnaa arrintaa dhulkaasu dhaxal weeye agoontaasaa leh cid iibin kartaa ma jirto waxaanu ogeysiinaynaa dadka reer Hargeysa iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan in arrintaas qofkii hantidiisa geliya inuu yahay qof hantidiisa lumiyay waa hanti dhaxal ah beerta Geedeeblo iyo dhulka halka ku yaalaaba hanti dhaxal weeye waa qof dhac u bareedo qofka hantidiisa geliya dadweynaha taa ogeysiinayna waxaanu kale ogeysiinaynaa beesha Cabdalla Sacad idinkoo mahadsan inagoo ah dad dhaqan iyo diin iyo walaalnimo iyo xididnimo iyo helnimo ka dhaxayso waxa weeye xoolaha agoonta waajib bay ka saarayaan lisaan Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe xaqiiqtabiyaha Carabiga ee Kelson TV magaalada Laascaanood